بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والله ليال إلهي توفيق ده الله نوافج دمانتين دنبيجين دنبيج والدين الله الرافع إن شاء الله تعالى ودرسيني أن صدحات كسر سنة ما حيكون حشان تضبيه طبعا كصفة أي دمر كورك حشان حسانو سوق هذا الني إن شاء الله وليدون دول مرئية waxaan soo qaadanay in ta u horeysa tahay taqwa Allah azza wa jalla taasoo ay ku xiran tahay xaqeeda inuu ilaaliyo xaqa Ilaahay xaqeeda iyo xaqa nafteeda iyo xaqa ilmaheeda xaqa reerkeeda inuu ku ilaaliyo Ilaahay cabsidiisa kow tii labaadna waxaan nidhi waa inuu lahaadaa nin khayrka u jecel dadka kale ayuu lagu xushaa ay dumarku xushaan ragga ta saddexaadna waxaan waa inuu ahaadaa nin ixtiraam iyo maamuus leh oo dadka ixtiraama iyadana inuu si ixtiraama sida u badan taafaradna waxaan insha Allah ta'ala waa inuu noqdaa waxa ka helan dumarku nin kaftan badan oo ciyaar badan oo faraka ciyaar ah saan sheegay waxaan nin wadaad marta goobta dumarka wadaada iska aaday laakiin waa inuu faraka ciyaara waa inuu ahaada nin kaftan badan oo ciyaar badan oo ka farxiya dumarka insha Allah ta'ala hada baan maanta waxa insha Allah ta'ala rabnaa inaan qaadano sifada shanaad ee qofta dumarka ay ku xoloonaysan ninka ragga iyo sifada lixaad maalin walba laba sifo qaadanayna walaalayaalo sifada afraad ama sifada shanaad waxa la yiraahdo xusnul istimaac a good listener waa inuu ahaada a good listener skills waa inuu lahaada ay bimaana nooca ma waa inuu ahaada nin dhageysi wacan oo ay sifooyinkiisa aad iyo aad u khibrad leh mar walbana ka dhageysta qofta dumarka mar walba ka dhageysta qofta dumarka waxna cusubna ma marka leeyahay dhageysigu waa sunnahii nabiga kaleey salaam waliba ka dhageysan jiray maanta walaalayaal rag badan waxa ku jirta ay maxaan dhageysanaya qoftan maxay tahay waa bilcaan way qaal magacyo badan oo bixi maxaan ku leedahay mukalif waa maxaan ku leedahay waa caruurta la mid tahay iyo aqli weynaada iyo waxyaalahaas inta ka baxno aanu soo noqon xaqiiqada ilaahay jalla wa ala qof bani aadam buuxda ayuu ilaahay kula abuuray ilaahay wuxuu ka soo saaray waajib adiga qayb kamid ah way ilaahay subhanahu wa ta'ala okay marka lidalik ilaahay jalla wa ala mar alla marka soo guursatay waxaad ogaataan reerka guriga gabigiisana nabigeena sallallahu rabbi wa sallam alayhi markuu adiga mas'uul kaaga dhigay oo kullu raa'in mas'uulun 'an ra'iyatihi nin walba mas'uul buu ka yahay reerkiisa wuxuu idana u dhiibay shaqo kale oo iyadu waxbay ka mas'uulta والمرأة راعية في بيت زوجها قفت الضمر كان الراعي بكتاي أو يذا كمسؤولة قرية أو ذجيذا ومال زوجها يحولها وذجيذا ما دام أردت حلقاتها أي بمعنى وحوي أذيب باش أسه ينسي وقرية ما دام أسه ينسي إلهي جل وعلا وكر لجينا هو واحد هذا هو في صومالي واحد لو ماشي لو قصة نقني هو واحد لو بحية يعني وحوي أرمه الرم باقصة نقني مرورب مثلا المهير هدي لو يدين ولا hooyo ay leedahay hooyadu ay leedahay xalay goormaad soo hooyatay xagee u soo hooyatay guriga goormaad soo hooyatay adiguna waxaad u soo hooyataa guriga guriga soo hooyatay ilaahayna jalla wa ala wuxuu sabab ka dhigay inaad guri hooyo u keentid hooyadii isku wada shubaysay wax walba qabanaysay oo wax walba ay falidalik tawfiiqda allahna waafajiye maxaa kamid ah markaad sifada adiga laga rabo inaad yeelatid sifada shanaad waxa weey walaalo khayr allah ku siiye صفة وأين الله حسن الاستماع a good listening skills وأين الله إن الله وحوي دقيسي وعن إن الله دقيسي وما عصب معها مركان الله عليه أنا قلنا عصب معها ووح نبينا صوبان صلوات ربي وسلام عليه لك اللهم لك الحمد نبينا صوبان صلوات ربي وسلام عليه أيها لا تشنجري كان دقيسنجري لا تشيقنا وسنه النبي عليه وضدك مؤمنين تا يلا وشيء الله أكبر وأمرهم شورى بينهم مر والبوي وضد تشدان وضد فلسطين نبينا سبحان صلوات ربي وسلام عليه اسكبر داف محاوك الأداي قولي إيه حتى مركو سفر كجلايو ريركي سوحي بناك وجاي ماد أيو كده جاي سنجر أنت وشاو مركي عرفتي صلح حديبية وماشي واحد مالتي لو بقي وأصحابتي إن عذبت إلهي كسودكت markay yiraahdeen nabiga kaleey salaam ya rasuulullah amiyana adigu ahayn nabi allah miyana ahayn oo ay yiraahdeen ma noqonayno oo yirina meesha waad soo gaadheen timaha iska xiira ayna iska xiirayno nin walba kamid ah wixii alla tirtiray ma tirtirayno waanu dhimanayna
ayaa nabigu calayhi salaam isagoo walwal iyo walbahaar ku jiro oo ka baqay in cadaabta ilaahay kusoo degto ayaa kusoo noqday khaymadiisii meeshii yareeday taankiisii ayuu kusoo noqday markaasaa waxay aragtay salama radiallahu tacaala canha wa ardaha allahuma laka alxamd mar alla markay aragtay waxaa ku tiri yaa rasuulallah maxaa dhacay si waxu jiraan wejigiisay murugo ka aragtay dumarkuna shaqadoodu waa sidaas marka odaygeeda murugo ka aragto waa dumarka la rabo 27 sifo aan kusoo dari doono ee aan ka dhigo dumarka ayaa sifooyinkooda ka mid ah qof yani mar walba odaygeeda fiirinaysa waxaa ku tiri rasuulka ilaahay maxaa si waxu jiraan markaasuu rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam wuuna u sheegay bimacna nooca ma mar walba waa inaan dumarkeena aan u sheegnaa dhibaatooyinka nala beero laana qoftii nala qaybsan lahayd wey ayadoo markay noo sheegto waa inaanu qaadanaa serious si aanaan adag tanaan maanta ka hadlay waxa weeye waa inaad adigu maqalka aad ka maqlaysid iyada sida aad maxaan ku dhaha uga maqlaysid inaad sidaas meel aad meelaysa hadalkeeda waxayna u baahan yihin dumarku nin rag ah raganimadaada maraysa rag baa ka odhanaya sheekh niyo xaaskiisunbuu maqlaha sheekadeeda waxay kusoo afuftan ay noola yimaadaa maya walaalo waxa weeye raganimadaada meel kagama dhaxayso nabigeena suuban salawaatu rabbi wasalaam khayru khalqillah ayaa la tashaday mar alla markii ay ku tiri rasuulka ilaahay ma sidaas waxu jiraan way kaa diideen inay wax qaataan orodoo kac bay ku tiri fadhiga ka kaco tag oo timaha adigu tus oo u yeer ninkii timaha xiriye timaxiriib oo tima jariib uu yeeray nabigu calayhi salaam uu fariistay markii oo arkeen inay timaha u jartay maha ra'yuu la yimi arrinuu la yimi maha waa arrin loo soo sheegay oo xaaskiisu ay u soo sheegay sidaas samee bay ku tiri do like this sidaa yeel sidii buu kusoo baxay mar alla markuu timaha iska xiraba asxaabtiina radiallahu tacaala canhum ardaahum allahuma laka alxamd sidiiba ilaahay ugu soo jeestay dhinaciisa ugu soo jeesteenoo nabiga calayhi salaam saxiix hadalkiisa timihii baa laga jaray allahu jala wacala waxay yidhahdeen culammadu maalintaas cadaab baa kusoo degi lahay laanna waxa nabiga calayhi salaam oo hadlaya oo ku leh war timaha iska xira ayay yidhahdeen maya waxay ama annaga oo rag ah ayaan ka noqonaynaa meesha ma noqonayna waa dagaalamaynaa oo meeshaanu dagaalamaya waa beydka ilaahay waxaasay aaminsanahay muxuu yidhi nabigu calayhi salaam maya wuu xirtay wayna ku daydeen arrinkan ayaa keenay arrinkaa waxaa keenay qof dumar waxay badbaadisay intaasoo kun oo qof saxaabiya 1400 baa la sheegaya wax ku dhow oo maalintaa rabay inay nabiga calayhi salaatu wasalaam miroodaan sababtii badbaadkoodu muxuu ahaa sababtii maqalkii oo ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisa ayaa ka mid ahaa inuu ka maqlo zawjaadka inuu la tashado inuu la fadhiisto inuu ka dhagaysto maxaa ku soo haray xadiidkii kale imaad la socotaan caaisha radiallahu tacaala canha 11 dumar ayay uga sheekeynaysa abu darca waa xadiis bukhaari ku qoran oo mar walba ay u sheegaysaa heblaayo waa sidaas heblaayo waa sidaas meeshii aninka ragga maanta baryahan leh maxaad sheegaysaa walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiye waxaa laga yaabaa ushan lagu garaacayo dumarka maaha usha maaha waxaa ka daran dumarka oo marka la dhegaysanayo oo aan hadalkeeda aan waxba ka soo qaadayn aad maxaad sheegaysaa nama waxaana lagu hadlaa nama caruur baa tahay nama saasaa tahay in la yidhahdo waa yaraysi waxaa la yidhahdaa maxaan ku idhahdaa physical waxa weeye waa emotional abuse waa nafsiyan qoftan inuu dhulka dhigo inuu iska yaraysto walaalayaalo khayr allahna siiyo waa dembiyaasha waaweyn ka mid usha iyo maxaan ku idhahdaa physical abuse baa la yidhahdaa tani maxaan ku idhahdaa saa loo dani iyo caqliga iyo maxaan ku idhahdaa waxaa la yidhahdaa mental abuse waxyaaladaas oo dhanba waxay hoos yimaadaan ninka ragga ah qofta dumarka qiimaheeda iyo qaayaheeda arki waayo waxaan ku jirtaan soo qaadanay maxaan ku inuu ixtiraam lahaada ixtiraamkeeda waxa weeye qadari inaan qadarino hadalkeeda dhageysiga oo kaliya maaha waan dhageystayo haye maxaad sheegi hadal wax dheh maaha qadari hadalkeedo dhageyso si fiican u qadari sifada walaalo khayr allah nasiyo toddobaadna waxa weeye ilaahay jalla wacala waxaan ilaahay ka barayna inuu ilaahay nagu anfaco sifada lixaad waa sifad waxa weeye nin fujignaantiisu ay badan tahay noqon rajulun dhuu intibaah waxa meesha ku jira guriga markaad soo gasho ogow ayadu waxyaalo badan bay ka xoogaa ogatay ogow markaad ka dhageysatid si fiican u meel maxaa soo galay maanta ayaa soo galay maanta ayaa yimi maxaa dhacay sida wuxuu jiraan sida wax nin waxay jecel yihiin dumarku mar walba fujignaantiisu attention leh attention kana nolosha ka mid walaalo khayr allahna waafajiyo dhamaanteen waxaanu keenay qof baan gurigooda ka keenay oo niri
shaqada aan qaban doono iyo reerka aan dhisi doono dhismahan geli doono ayay dhisisaa marka waxa weeye adiguna waxaa tahay manager iyaduna waa assistant waa kaalkaaliyahana meel waa inaad dhigtaa waa inaad hadalkiisa qadarisaa waa inaad hadalka uu leeyahayna u foojignataa allahuma laka alxamd waxaana laga rabaa walaalo tawfiiqda allahna waafajiye waxaana laga rabaa mar walba inaan ahaano rajulun duu intibaahin waxadar waa inuu ku jiro reerkan aad keentay waxa ka soo baxaya iyo wixii soo galaya iyo waxay maxaan ku dhaha u baahan yihiin nin yani aanan ahayn nin hurdaaye qaar rag oo hurdaaye la yidhaha baa jira hurdaaye wuu imanayaa waa yimi shaqadu ka yimi wuu qaaday maxaan ku dhaha biyihii isku shubay wuu quwaystay wuu bedeshay wuu cunay wuu cabay banaankii iyo meeshii fadhi kudarirku aaday maaha dumarku kaama baahna adiga baan qof kale uma baahna markuu saa u soo galo uu yimaado oo keliya taa yimaada alxamdulillah oo waa soo lama fiicna kitaabka iska qaato isaguna suuqa iska maxaan ku dhaha masaajidkii aada maya taa looma baahna waxaa loo baahan yahay dumarku rabaan saa nigu sheegay nin ciyaar badan nin maxaan ku dhahda kaftan badan nin ixtiraam badan ninkii kanna waxa weeye waa rajulun duu istimaacin xusna alistimaac wanaag waa inuu lahaadaa dhegaysi ah fadhiiso shaqaad ka timi quwaysigii kadib la fadhiiso adigoo cunaya iyadoo kula cunaysa waliba ka fiican tahay adiga markay kula cunaysa ayad adigoo cunaya ku garab fadhido oy ku leedahay walaalo arrinkaasaa maanta soo kordhay haye maxaanu ka qabanaa adigoo cuntadii cunay kadib gacantii aad ka farxartay haye xagee ka bilowna maxaa loo baahana maxaa layga baahan yahay maxaan sameeyaa ilan anaa lai baahan yahay adiga cid kale oo maaragtay gabadhan is hortaaga oo u maciina ma leh falidaalika tawfiiqda allahna waafajiye waxaan u baahannahay nin lahaadaa kartida dhegaysi karti dhegaysi oo ahaa صح wixii saxana sax wey wixii qaladana waa qalad walaalay khayr allah ku siiyo xataa hadduu qaladkii sheegayo waa inuu yidhahdaa ha intaas waan ogaaday laakiin waxa ka sii fiicnaan lahayd sidan oo kale ay bimacnaa rajulun duu xusna alistimaac ilaah waan gartay sax haye maxaa soo kordhay sidee wax u jiraan maxaa jira intii oo dhan dumarku waxay ku xushaan ragga noocaas allah nagu anfaco ta kalena ilaahay jalla wacala waxaan ka baryaynaa inaanu yeelano maaha maxaan ku dhaha nin soo jeeda inaan noqono oo oon u soo jeedno wax alliya wixii ka socda guriga ilmaha maxay cuneen maxay cabbeen maxay u baahan yihiin maxaa guriga ka maqan waxbarashadoodii haye kutubtu ma ku filan tahay maxaan ku dhaha maxay u baahan yihin in wax loo dhigo maxay u baahan yihin gaari maxay u baahan yihin waxyaalada u wada baahan yihiin oo nin foojignaantiisu badanta marka walaalo khayr allahna siiye waxaan u baahannahay rag noocaasina sifooyinkaan nin sheega waa maxay taqwa allah caza wajal ilaahay ka cabsi talabaadna waa inuu lahaadaa maxay waa inuu lahaadaa uu ku sifnaadaa sifo ixtiraam leh ta saddexaadna waxaan nidhi waa inuu ahaadaa ta saddexaad waa inuu ahaadaa nin maxaan ku idhahdaaye leh khayrka u jecel dadka ta labaad ta saddexaadna inuu ixtiraam leh ta afaraadna nin maxaan ku idhahdaaye ah kaftan badan ciyaar badan oo mar walba reerkiisu ay ogaadaan ninkii uu ka maqan yahay oo haddana mar walba niyadda lagu hayo qalbiga lagu hayo iyagoo faraxsan caruurtii ilmo caruurtii reerku tii shanaadna waxaan nidhi allah nagu anfaco ta shanaadna waxaan nidhi ninku waa inuu ahaadaa nin leh qadarin dhegaysi oo wanaagsan ta lixaadna waxa weeye ilahay tawfiiqda allah na waafajiye nin soo jeeda oona hurda ay ahayn allah nagu anfaco marka insha allah ilaahay ka gaadhin darsigeena ku xiga waxaan oran lahaa insha allahu tacaala like saara kana maxaan ku dhahdaay subscribe gareeyo si uu idinku soo gaadho insha allah tacaala darsiga ku xiga wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu allah nagu anfaco waxaan maqalnay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu